السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا دونيدا مانتا هداي تاي مركاقي كوور ريسي فضلا سبسكراب نوصار جنباليل كنفرو سياي كوسو غاران وحيابا إنو صادق نميشان هدا هوري نولا جوكتي آدا يانو كاقم هاد علينينا دادالو أصحابتا هالي لبا كميدا كوسو حرميشان سيايغان أيوغا فايديستان وحيابا إنو سوقلي نميشان وحان إذين ودا مانتا قصة عجيبة قصة عبر قادشو مدن qisada ciwaankeedu waxa waayay waxay dhashay iyadoo mid ah ninba u yimid Sayyid Umar bin Khattab Allah ka rali noqday ninka wuxuu watay wiil yar Sayyid Umar ayaa yiri waxaan arkay maanta waxaan la yaabay waligay ma arag nin cunugiisu sidaan ugu egyahay markaasuu ninkii yiri Sayyid Umar ma ogtahay wiilkan inay hooyadiis ay dhashay iyadoo mid ah markaasuu Sayyid Umar radiyallahu anhu intuu fadhiga bedelay ku yiri iiga sheekay sidee u dhashay iyadoo mid ah ninkii wuxuu yiri wiilkan isagoo caloosha hooyadii ku jiro ayaa safar soo galay markaasay hooyadii tiri halkay iiga tagaysa anigoo xaamilo ah oo dhali rabo haddaba markaan albaabka guriga ka baxayay ayaan caloosheedii gacanta intaan saaray ayaan ku iri ilaahayow adigan kugu amaansaday canugayga intaas kadib ayaan safarkii u baxay markaan safarkii ka soo laabtay ayaan imid gurigii oo xiran kadib dariskii ayaa ii sheegeen inay xaaskayga dhimatay kadibna waxay ii keeneen casho anoo cashadii cunaya ayaa waxaan arkay qiiq meel ka baxayo markaas ayaan dadkii weydiiyay waxaan ay ii sheegeen inuu qiiqaasi yahay qabriga xaaskayga iyagu waliba ii sheegay maalintii la aasay ilaa iminka inuu qiiqaasi ka socdo qabrigeeda wallahi inaan dadka oo dhan uga aqoon badanahay xaaskayga waxay ahayd qof taqiyad ah qof saalixad ah qof soon badan qof wixii xun reebta wixii sanna dadka farta markaas ayaan dadka ku iri soo baxa oo raaca aan soo aragnay waan soo baxnay markaan qabrigii imaanay ayaan ku bilaabnay inaan qodno markaan qodaynay mise waxaan aragnay xaaskii oo meed ah iyo canugayga oo ag fadhiya kadib ayaan maqlay cod leh kii amaanada Ilaahay u dhiibtayow qaado amaanadaada culimadu waxay yiraahdeen hadduu dhihi lahaa Ilaahayow wiilkayga iyo hooyadiis ayaan kugu amaansaday ayadoo nool buu u imaan lahaa laakiin qadarka Allah ayuu ahaa inuusan sidaas dhihin waqtigeeda ayaa inta ku ekaa qisadan cajiibka ah ka heshay fadlan like saar waxaan ka codsanaynaa qisadan si faafiso oo aad ku faafiso baraha bulshada aad ayaad u mahadsan tahay